أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا. waxaa jiri jiray nin taajir ama maalqabeen sidaad u taqaano, waxaana u shaqayn jiray dad tiro badan. dadkaasi waxaa ka mid ahaa nin cunto kariye. ninkaasi taajirka wuxuu ahaa nin dabeecad qalafsan oo aad u dhibi jiray shaqaalooyinkiisa, gaar ahaan ninka cunto kariyaha ah aad buu u canaanan jiray. haddaba muddo kadib wuxuu go'aansaday inuu dabeecadihiisa wax badan ka bedelo oo uu dad la macaamiilkiisa hagaajiyo. wuxuuna u yeedhay ninkii cunto kariyaha ahaa si uu u raaligeliyo. wuxuuna ku yidhi, waxaan maanta rabaa inaan kaa raaligeliyo dhaqankayga iyo dabeecaddaydii qalafsaneed ee aan kugula dhaqmi jiray iyo canaantii. waxaanan kuu ballan qaadayaa in aanan dib dambe kuu canaanan doonin. markaas buu isagoo faraxsan ninkii cunto kariyaha ahaana dhehe, waad mahadsan tahay, anigana waxaan kuu ballan qaadayaa maanta kadib in aanan maraqa cantuuf kugu soo tufaynin. nin cabtooy ah ayaa habeen saq dhaxa waddada booliis ku qabteen. booliiskii baa ku yidhi, waryaa soo ful gaariga. harfaankan kulahaa, mahadsanidin walaalayaal, gurigaygu u dhow yahay. harfaankan ma oga in xabsiga la geeni rabo.